kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah odayaasha beelaha Hawiye oo ku dhawaaqay in maamul cusub loo sameeyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka oo eedeyn u jeediyeen wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka ku dhexmaray gobolka Shabeellaha Hoose xog cusub oo laga helay sababta ay Kenya u xirtay Bursaliid iyo magacyada dad la xiray Somaliland oo ciidamadii ugu badnaa geysay gobolada Sool iyo Sanaag iyo xiisada u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliya oo cirka isku sii shareeraysa maxaa ka jira in Sacuudiga ay shacabkeeda ka bixinayso kafaaro guud ku aadan inay afurisay maalin soona iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku wajahan dalka ay rabshadaha ka taagan yihiin ee Suudaan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taawo si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee halkan soo gelino markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ayaa ku dhawaaqay in maamul cusub loo sameeyo gobolka Banaadir iyadoo dowladda federaalkana eedeyn kula loo jeediyay kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir ayay ku dhawaaqeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay caburin ku hayso shacabka Muqdisho waxgaradka waxa ay sheegeen inay sameyn doonaan maamul gaar ah oo yeesho gobolka Banaadir si looga baxo dhibaatooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hayso shacabka caasimadda waxa ay sheegeen in magaalada Muqdisho loo kala qaybiyay laba qaybood oo ay adag tahay in la isku kala gudbo maadaama inta badan ay xiran yihiin wadooyinka magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka ayaa Xuseen haweenka inta badan ay ku umulaan wadooyinka isla markaana aysan wax naxariis ah ka helin dowladda Soomaaliya oo sii xirtay wadooyinka mid ka mid ah odayaasha ka qayb galay kulankaasi ayaa waxa uu sheegay inay soo saareen in maamul cusub loo sameeyo gobolka Banaadir isla markaana waxay dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay culayska ka qaadaan shacabka gobolka dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ku dhexmaray gobolka Shabeellaha Hoose howlgal si wada jir ah isaga kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Mareykanka ayaa laga fuliyay meel u dhow deegaanka Tooro ee gobolka Shabeellaha Hoose sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka howlgalkaas ayaa lagu dilay xubin kamid ah al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka warbaahinta dowladda ayaa sheegtay intii uu socday howlgalkaasi in sidoo kale lagu guuleystay in al-shabaab awoodooda lagu wiiqo deegaankaasi oo kamid ah deegaanka ay sida weyn ugu xoogan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Mareykanka ayaa si wada jir ah u sii xoojiyay weerarada ka dhanka al-shabaab iyo ISIS ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xog cusub ayaa laga helay sababta ay Kenya u xirtay Bursaliid iyo magacyada dadka la xiray xog cusub ayaa ka soo baxaysa xariga ciidamada dalka Kenya ay magaalada Nairobi ugu geysteen Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed xogta aan helina ayaa sheegaysa in Dr. Bursaliid ay xalay saqdi dhexe gurigiisa ay kala baxeen ciidamada sirdoonka dalka Kenya sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ehelada ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe ay ciidamo isugu jira kuwa dharcadka iyo kuwa hubeysan ay yimaadeen guriga oo uu ka degan yahay magaalada kadibna ay ka wateen ila xog ogaal ayaa iminka sheegaya in xariga Dr. Bursaliid uu ku yimid kadib markii isaga iyo siyaasiyiin kale ay shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqeen xisbi siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo Mandeeq Party wararka ayaa sheegaya in Dr. Bursaliid la xiray dhowr qof oo kale oo ay ka mid yihiin Cali Cabdi Maxamed Geela Deeriya nin magaciisa lagu soo koobay Xuseen iyo xubno kale oo magacyada aysan soo gaarin wararka ayaa sheegaya in xubnaha la xiray aysan wax ogolaanshaha dowladda Kenya uga haysan shirkii ay shalay ku qabteen magaalada Nairobi Dr. Bursaliid ayaa caan ku ahaa inuu falanqeyn jiray siyaasadda gobolka iyo Soomaalida isagoo caan ka ahaa warbaahinta Soomaalida waxa uu sidoo kale macallin ka ahaan jiray jaamacadda Nairobi dowladda Kenya ayaa la sheegay inay dhawaan diyaarisay liiska ay ku qoran yihiin magacyada siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaali oo dalkeeda ay ka mamnuucayso lama oga in xarigan uu taasi qayb ka yahay in kale geesta kalena Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay gobolka Sool halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland waxaana la sheegay in ciidanka ay fulin doonaan amar ka soo baxay Somaliland oo ahaa soo qabashada saraakiisha ku biirtay maamulka Puntland wararka la helaya waxay sheegayaan in ciidamo wata gaadiidka dagaalka ay tageen deegaanada Yoobe Hadaaftimo Damal Xagare iyo deegaano kale waxaana ay ku sii jeedaan deegaanadii dhawaan ay ciidanka goos ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanadaas ayaa waxay sheegeen in ciidamadaas ay yihiin kuwa hor leh ayna ka cabsi qabaan dagaal dhexmara Puntland iyo Somaliland
ciidamada ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanada Yobe, Hadaftimo iyo Damala Hagare, waxaana dadka deegaankaasi ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in lagu dagaalamo dushooda isla markaana ay khasaare ka soo gaarto. maxaa ka jira in Sacuudiga ay shacabka ka bixinayso kafaaro gud ku aadan inay afurisay maalin soona? dood kala duwan ayaa ka dhalatay in la arkay bishii Shawaal, isla markaana waxaa arrintaas isku khilaafay qaar ka tirsan dowladaha Islaamka. dowladda Sacuudiga ayaa ka mid ah dowladihii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay in la arkay bishii Shawaal, waxaana kadib ku raacay dowladaha Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo dhammaantood u dabaaldegay ciida maalintii Talaadada ahayd. sidoo kale dowladaha go'aankooda bedelay markii dambe Sacuudiga ku khilaafay in Talaadadii ay ahayd ciid waxaa ka mid ahaa dowladda Liibiya oo soo saartay laba go'aan oo ku saabsanaa ciida, inkastoo midkii dambe uu ahaa in maalinta Talaadada ahayd la dhammaystiro soonka, halka ay ciidana ay markaasi u noqonayso maalinta Arbacada ay ahayd. sidoo kale dowladaha ciiday Arbacadii waxaa ka mid ah Malaysia iyo Indonesia kadib markii ay sheegeen in la arkin dhalashada bishii Shawaal ayna soonka dhammaystirayaan maalinta Talaadada ah. haddaba ciida kadib waxaa soo baxay dood culus oo ku saabsan inay Sacuudiga ku qaldantay in maalintii Talaadada ahayd ciidaasi la ciido, sidaas daraadeedna ay 1 bilyan iyo 6 milyan oo lacagta Sacuudiga kafaaro gud ay ugu bixinayso shacabka Sacuudiga maadaama ay afurisay maalin soon ay ahayd. meelaha lagu faafiyay warkan ayaa waxay soo xiganayaan Maxamed Al-Najmi oo xubin ka ah dalada fuqahadaha Islaamka ee dowladda Sacuudiga, kaas oo la sheegay inuu wareysi dhanka taleefanka siiyay telefishinka Al Arabiya, waxaana la xaqiijiyay in arrintaasi ay tahay been abuur kadib baaritaan lagu sameeyay warbixinadii ka baxay telefishinkaasi oo laga waayay warbixin ka hadlaysa arrintan. sidoo kale dadka faafinaya arrintan ayaa soo xiganaya qoraal ay sheegeen inay baraha bulshada ku soo qortay hay'adda cirbixiyeenka ee magaalada Jeddah, balse markii dib loo fiiriyay baraha bulshada ee hay'adda sida Facebook iyo Twitter-ka labadaba laga waayay qoraal ku saabsan arrinta la faafiyay. arrintan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay faafinayaan kooxo Xuutiyiin Yemen iyo Iiraan ah, kuwaas oo dagaal kula jira dowladda Sacuudiga. been abuurkan ayaa ku soo aadaya xilli boqorka Sacuudiga ahna uu adeegaha xarameynka Maxamed bin Cabdilcasiis Al Sacuud uu Talaadadii xaramka kula tukaday ciidul fitriga muslimiin badan oo isugu yimid xaramka iyo hareerihiisa. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku wajahan dalka ay rabshadaha ka taagan yihiin ee Suudaan. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta oo Jimcaha booqan doona magaalada Khartoum si uu u dhexdhexaadiyo hogaamiyaasha militariga hay'adaha dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha dibadbaxayaasha, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Khartoum. ila wareedyada ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters in Abiy Ahmed uu la kulmi doono golaha militariga Suudaan iyo isbahaysiga xoogaga xorriyadda iyo isbedelka inta lagu guda jiro booqashadiisa halka maalin ah. dhinaca kale golaha ammaanka iyo nabadgelyada Midowga Afrika ayaa Suudaan ka hakiyay xubinnimadii iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ururka inta dowlad rayid ah laga dhisayo dalkaasi. golaha ayaa go'aankani ku dhawaaqay kadib kulan ay xubnaha golaha maanta ku yeesheen magaalada Addis Ababa. go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii dhawaan ay aad u sare kaceen rabshadaha dalka Suudaan, iyadoo ciidamada ammaankan ay toddobaadkan dileen dad ka badan 100 qof oo dibadbaxayaal ah. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta.